magaalada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia ayaa iyadana munaasabad tan la mid ah si fiican loo soo qurxiyay lagu sameeyay oo isugu yimideen jaaliyada wadankaasi. Saciid Cumar ayaa warkan noo soo diray. munaasabad lagu weyneynayo xuska 52 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya xornimadeedii heshay ayaa caawa waxay ka dhacday caasimada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia. munaasabadaasi ayaa waxaa soo agaasimay guddiga ardayda Soomaaliyeed oo ay kaashanayeen safaaradda cusub ee Soomaaliya ka furatay Malaysia, waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo horkacayay safiirka Soomaaliya u fadhiya Malaysia Danjire Salaad Cali Ibrahim Catoosh, safiir ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamuud iyo madaxda safaaradda Soomaaliya. waxaana ka marnayn gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Malaysia Dr. Musa, aqoon-yahano iyo bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku nool Malaysia. khudbado dheer kadib oo goobta laga jeeday ayaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Malaysia Catoosh ka waramay qiimaha ay leedahay munaasabada tan. Soomaaliya maanta waa dawlad horey bay u socotaa, soo noqon mayso. runtii waxa weeye habeen aad qiimo u leh, waa habeenkii aynu xorriyadda qaadanay, waa habeenkii aynu mid noqonnay, waa habeenkii aynu dawlad noqonnay, waa habeenkii aynu shacab ayagu amal adduunka kule aan noqonnay, adduunkana laga ictiraafay. dhanka kale qaar ka mid ah ardayda iyo macallimiinta Soomaaliyeed ee ku nool Malaysia ayay hambalyo u direen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka 52 guurida ka soo wareegtay xornimada ummadda Soomaaliyeed. waxaana u rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto barwaaqo iyo cimri dheer iyo caafimaad inay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa. ku hadlay runtii macallimiinta dalka Malaysia dhamaantooda afkooda ama ku hadlay waxaan aad u jeclahay in aan u hambalyeeno dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaana aad rajo uga qabaa insha Allah mustaqbalka shantii Soomaaliyeed inay dib u soo midoobaan oo ay mid noqdaan kulli. 52 sano ayaa ka soo wareegtay markii Soomaaliya ciideeda laga taagay calanka. caawa ay ku beegan tahay 1 Luulyo waxay Soomaalida oo idil u dabaaldegayaan munaasabadii ka soo wareegtay 52 guuradii, waxayna ku beegan tahay xilligii ay midoobeen gobolada Koonfur iyo Waqooyi Soomaaliya. Saciid Cumar, Universal TV, Malaysia.